gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa gaarsiiyay dadka barakacayaasha ah ee ka soo barakacay abaarta ba'an ka jirta gobolada bariga Soomaaliland ee ku sugan deegaanada gobolka Gabiley deeq iskugu jirta dharka dhaxanta sida koodhar bustayaal iyo cawo kuwaasi oo ay soo direen haween qurba joog ah oo ka soo jeeda gobolka Gabiley isla markaana degan magaalada Birmingham ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyay maayarka Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay deeqdani ayaa waxa uu yiri deeq gaarsiinta dadkii bari abaartu ka soo rartay oo labadii wiig ee u dambeysay runtii ka socotay deegaankan gobolka Gabiley degmooyinkiisa kala duwan maanta waxaanu halkan goob joog u nahay oo dadka soo gaarsiinay deeq ah dhar bustayaal cawo iyo boco deeqdaas oo ina soo gaarsiiyeen haween qurba jooga oo gobolka Gabiley ka soo jeeda oo degan magaalada Birmingham runtii dadka halka degani waxay dareenkooda la soo wadaageen dadkooga walaalahooda jilicsan ee gobolkoogii runtii wax soo mooday ee dhibaatadu runtii ku hayso ila la qaybsadaan duruufta nololeed waa dad soo hayaamay oo dhulkoogii ka yimi qofte danid dhulkiisii ka keentayna waanu dareemi karana duruufaha haysta hadday tahay deganaanshiyo iyo hadday tahay waxa weeye baahida calaf ee runtii halka keentayba aad iyo aad baan runtii dumarka reer Gabiley magaalada Birmingham ugu ducaynayna inuu Ilaahay ka abaal mariyo oo halkay ka soo saareen wax ka khayr badan uu Ilaahay ugu bedelo waxaan leenahay Ilaahay cimriga iyo caruurta iyo caafimaadka haydin barakeeyo waxa muujiseen dareenka walaaltinimo ee dadkiina runtii u leedihiin ee inaga dhaxeeya ee maanta Soomaaliland oo dhan ka socda runtii waa waxyaalaha aynu dadka reer Soomaaliland ay aad ugu amaanan yihiin anta abaar culus baa bari ka dhacday intii bari ka iman kari weydana bari baa loogu gurmanayay intii bari ka soo hayaantay itaal galbeedkeena galbeed baa runtii dadkii u kaceen oo gudayo dibadba la barbar jooga idinkuna koobaad ka tihiin gobolka Gabiley qurba joogooga runtii soo xasuustay dadkooga aad baan idinku ducaynaa awalba waad ku tilmaanaydeen horumarka iyo ka qaybgalka wixii baylaha gobolka jira aad iyo aad baan runtii u mahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadweynaha kala duwan ee degmooyinka gobolka ku nool iyo maamul ahaanba labadii wiig ee u dambeysay dadkaasi socdeenba runtii dadaaladana way socdaan bulshada sabaabushay oo maamulka runtii daba socota baa jira waxaa laga shaqaynayaa ganacsatada iyo guddida horumarinta wajaale dadaal bay wadaan culimada iyo ganacsatada degmada Gabiley sida ay kadalik dadweynaha Arabsiyo mar alla markay xadka Gabiley saa soo gaadhaan ilaa iyo xaaji daahir hawshu saasay u socotaa kolba wixii loo heli karo waa alxamdulillah dadkii ay u yimaadeen si sharaf loo qiimo leh u soo dhaweeyeen maanta wax dhib oo haya ma jiro wuxuun baan Ilaahay ka rajaynaa inuu Ilaahay roobka iyo raxmadda inoo shubo oo inoo soo naxariisto gacantiisa inuu ku dharganaa waxaynu inoo istaranaa waxba runtii noqon maaya waa wax lagu dhaafayo uun maalmo aad iyo aad baan runtii ugu ducaynaa dumarka qurba jooga dadkana u ducaynana dadka soo dhaweeyay deegaankana runtii aad iyo aad baan ugu ducaynaa aad baa maasantay soo imika beerta aynu arkano kale waa beer qof reer Gabiley oo muwaadin oo beertay markay dul yimaadeen dadkii walaalahooda abaartu keentay sidaas xoolihii loogu sii daayay oo idinka arkaya arigiyo beertii iska dhex mushaaxaya oo runtii daaqaya waa sharaf iyo waxa weeye garansiin Ilaahay garansiiyay dadweynaha deegaanka reer Gabiley aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Ilaahayna ha ka abaaliyo caruurta iyo dadka jileedsan baa runtii socda u baahan in runtii si gaar ah looga warhayo dhawaan insha Allah waxaan soo gaarsiin doonaa raashin adu 4 cisho kadib ilaa 125 qoys raashinkooda insha Allah dadkuna waxa weeye dadkaas sadaqada ku baxso weeyaan waxa wax soo dirteen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan maanta la joognaa dadkeenii abaaruhu ay soo barakiciyeen
waxaanu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa haweenka reer Gabiley UK gaar ahaan Birmingham iyo oo uu soo dheereeyay dhammaan jaaliyadii reer Gabiley anagu maamul ahaan aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa dhammaan qurba joogga gobolka iyo Somaliland gaar ahaan hablaha maanta halkii looga baahnaa uu soo diray hadiyadaas iyo alaabta ay u baahan yihiin waxaan aad iyo aad ugu dardaaraynaa dhammaan qurba joogga gobolka iyo gobolada Somaliland inay u soo gurmadaan dadkooda bustayaal xilliga dhaxanta lagu jiraa waa December iyo January baa lagu soo dhow insha Allah waxaan rajaynaynaa in Ilaahay naga soo gaaro abaartan gaar ahaan hablahaasina aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo gaarsiiyay waan u mahad celinaynaa walaal Ilaahay jana khayr siiyo dayma degmada iyo dumarka iyaga dibada ku maqan ee noo keenay waan ugu mahad celinaynaa ayna soo gaarsiin bacihii alaabtii goorarkii bay noo keenay marka Ilaahay caafimaad ha siiyo si fiican bay noo gacan qabteen وعبد الرزاق أحمد هيان الكعسي شبكة ورارك الجبيلة نيوز نتورك مقالة الجبيل.